hogaamiyayaalka siyaasiyiinta waxa uu dana inay yiraan dadku mid weeye kursiga aanu tartana yiraahdan reehebel lama arki kale iyo urur hebel lama arki kale intay iska daayaan Soomaaliya nahay kursigaas aanu tartana hadii ninka noogu fiican aanu dhiibana horta lama rajaynayo ani laftii hatta dhih mas'ala dalab al muhali way waxaan suuragalahay war ninka fiican u dhiibana ninka fiican maba la sugayo wata laakiin wareer hay ninka fiican aanu dhiibana ma jirtee inta nadar rabnahay aanu tartano ninka ku soo harana aanu deeyno inta la yiraahdo roon haddaan saa la yeelina waxay hadda meeshii marayday noqon oo hebel yuusan imaan aniga kaliya meeshaan ay wacayayuba meeshaan kaliya waana daadiyo adaa madaxay dhahay hebel yuusan imaan waxay tani ku taraysa lama arko hogaamiyayaalka dhaqanka waxa leeyahay bulshadu qiimo waxay ku leedahay kan riix maahan reehbal xusulka u dhigo riix reehbalna riix qiimo kuma lehe reehbal inaad ay qiimo ku yeelato oo ninkii nabadoon jufadiisa kaliya uu san nabadoon noqon inta deegaanka oo dhan nabad magaca qaaliga fiiriq la tixgeliyo hadeer baa nabadoonnimo si u jirta ma ogi nabad ka taliya noqo adaad beeshaada nabad la rabto min beelaha beelna sharha la rabi laakiin beel heblan xusulka loo dhigo hal riixo beeshaydu nabad hesho ma suuroobay inay beeshaaduna nabad hesho mid kalena dhibtooto suuragal ma ahane midii la riixataaduna waa la riixmaysa isku soo duuduuba khulaasadii nuxurkii waxa leeyahay ummadda muhammadiyada ma kala maarato rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri almu'minu lilmu'mini kalbunyan mu'minku mu'minka kale wuxuu la mid yahay dhismaha kale bal gurigan hal dhagax dhismihiisa ka bixi ala la qaldabayla ka soo gali meeshii aad ka bixido dhagaxaas ka bixido dabayshii iyo bahaladii xasharaadka ka soo gali hadda uu tadiin inuu dumar dhinacaas inta jalacsan dumayu u dhow yahay sida dhismuhu uu san u kala maarminaysan muuminiintu u kala maarmin markaas rasuulku saafaraha u gali faraho sidaas say u daldalolaan fiiri saan u dhixgelisay qiimo u yeeshaan fiiri meel daloosho male muuminiintii markay kala taagan yihiin mid walba meeshiisa dawac ku eriyon saan markay isu dhixgelidana fiiri meel laga soo gala male nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam xigmadaas uu noo sheegay bulshada ma kala maarto bulshadu hadaynan kala maarmin oo aqliga ku kala maarmin oo dhaqanka ku kala maarmin oo wax siyaasad lagu sheegay inay ku kala maarmin hadda siyaasad fiican ma mid siyaasadda lagu sheegay waa mid khiyaano iyo tuuganimo iyo isdaamarsiis iyo mooryaanimo ku dhisane siyaasadii fiicneed oo rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadii lagu maamulayo taasi iyadana lama kala maarmin rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam siyaasi oo ay horta ogow nabi muhammad baa siyaasi aha ninkii doonaya siyaasadda diinta marka hore barto siyaasadda reer galbeedka iyuuna baran siyaasadda diintu waxay tahay waa geesinimo oo dadka gobol xakiiraadan kaas lama mari kareen naga daayay balaayada caloosha adkeed weey waa deeqsinimo oo dadka gobol lacag soo doonteen dhaqaalaha soo doonteen hebel noo geeyay maanta xogaa u doonan hay yiraahdeen waa dulqaad intii adab darro sameeyay inaad iska sii daydo markaad geesin noqoto markaad deeqsi noqoto wixii lagaaga baahan yahay heli kartaa aad bixido markaad noqoto qof dulqaad loo habiyo wixii masaal ay dhihi kara warkaas aan dhihin oo buuqinaad noqoto bibadlin wa hilmin saada fi qawmihi alfata wa kaunuka iyahu alayka yasir qofkii qof qolo madax u noqday oo madax lagu qanacsan yahay dhadan baa lagu haystaa madax lagu qanacsan yahay dad aragto oo aan la hiifayn dana lagu haystaa maalinta dhibaato loo baahan yahay oo yacbu dhihi maalintii dhinac kale dhibaato ka timaada loo baahan yahay ho buu dhihi maalintii xumaan la sameeyo leeyahay la daayo dadkan iska daayay waxaan maqleenin odaya oo odayaalkii ciidan beeshan kamid ahayo dadkii qiimaha lahayo bulshada maamulka hoggaanka dhaqan u soo noqday nin kamid ah waxaan maqlay isagoo doodaya xoolo beeshan oo niman Talyaani waxay ahayn maqan la dulmiyo xoolo la kiisay isagoo u doodaya ani wuxuu siri kulli geelisiya ku jira wuxuu ama geelaagu ninkan ku kiisbaxa kabu inta la soo arday mabdaanka wasi ciidamadii jooga damceen inay xiraan markaas wuxuu yiri ninka maxaa laga rabaa daanka asaga leh maxaa laga rabaa daankan haduu kab ku dhifto asaga leh daanka yaa la leh faraha laga qaado ninka lama xiri kare wasaasa sharaf lagu heli karaa midkan anu caayaha la soo xiray hadii la hal soo xasil maayo ogow wa bulshadu waxay ninka waxa la jeclaan kara markii dan lagu wato ogow